dunidu waxay ku tartantaa dhaqaale iyo horumar. Dal kastana wuxuu ku dadaalaa sidii uu noqon lahaa kan ugu qanisan. Laakiin waxaa jira hal dal oo ka baxay tartankaas, kuna dhawaaqay in guusha dhabta aysan ku jirin lacag, balse ay ku jirto farxadda dadka. Dalkaasna waa Bhutan. Marka ugu horreysay aad maqasho magaca Bhutan, waxaa laga yaabaa inaad u malayso inuu yahay dal yar oo ku dhex yaal buuraha Himalaya, isla markaana aan wax badan laga maqal. Laakiin muuqaalkaas degan waxaa ka dambeeya sheeko duninteeda badan ka yaabisay. Inta badan dowladaha adduunku waxay ku faanaan dhaqaalahooda, waxay ku tartamaan dhismayaasha ugu dhaadheer, warshadaha ugu waaweyn iyo kobaca dhaqaalaha. Laakiin Bhutan wuxuu isweydiiyey hal su'aal: haddii dadku aysan faraxsanayn, maxay faa'iido u leedahay dhaqaale xooggan? Su'aashaas ayaa beddeshay habkii ay dowladdu u arki jirtay horumarka. Halkii ay diiradda saari lahaayeen lacagta oo keliya, waxay abuuraan hal cabir oo cusub: farxadda guud ee qaranka. Fikraddan waxay qiimisaa wax ka badan dhaqaalaha. Waxay eegtaa caafimaadka dadka, tayada waxbarashada, ilaalinta deegaanka, dhaqanka, iyo sidii bulshada ugu qanacsan yihiin noloshooda. Laakiin arrintaas kuma eka. Muddo dheer Bhutan ma ogolaan telefishinka, internetka. Maaha inay ka baqayn tiknoolajiyadda. Waxay ka baqayn in isbeddel deg ah uu lumiyo dhaqankooda iyo habnololeedkooda. Xitaa maanta, sharciga Bhutan wuxuu dhigayaa in ugu yaraan 60% dhulka dalka uu ahaado kayn. Taas waxay ka dhigtay Bhutan mid ka mid ah waddamada hawada ugu nadiifsan dunida, isla markaana nuuga kaarboon ka badan inta uu hawada ku sii daayo. Dabcan Bhutan maaha dal quman. Wuxuu la tacaalaa caqabado dhaqaale, shaqo la'aan, iyo caqabado kale ay kala kulmaan waddamo kale. Laakiin wuxuu dunida tusay hal xaqiiqo oo muhiim ah: mararka qaarkood horumarka dhabta ah laguma cabiro inta lacag ee waddanka leeyahay, waxaa lagu cabiraa si dadkiisu ay u nool yihiin. Waxaa macquul ah inay tahay sababta Bhutan uu noqday dal yar oo dunida si weyn ugu hadasho. Waxaa laga yaabaa in su'aasha ugu muhiimsan aysan ahayn imse lacag ayaan haysanaa, balse ay tahay imse qof ayaa ku nool nolol ay ku qanacsan yihiin.